badan baa i weydiiyey aawa Instagram-kaada noo soo sheeg. Haddaba Instagram-kii aan isticmaalo waa kaas 63 marooyaa hadda baa samaystay. Marka asxaabta ku soo yaaca Instagram-ka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan ii hayaa runtii qiso waxtar badan. Haddaba qisadaas ayaa maanta niga sheekeynaya. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa jiri jiray wiil la yiraahdo Nuur wuxuu dhigan jiray iskuul wuxuuna ahay galaas 6 ama galaas 6. Nuur ilmaha iskoolka joogaan asiga ayaa ugu fariidsanay ama macnaha ugu fariid wax ka wada asiga ugu aqoon badnaa. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday in uu Nuur iskuulka imaan waayo hal maalin. Iskuulku imaan waayo Nuur iskuulku wuxuu imaan ayaa waxa ay tahay Nuur aabihiisa ayaa wuxuu ka codsaday in uu ku soo wareejiyo magaalooyinka iyo caasimadda quruxda badan ee Muqdisho. Nuur aabihiisa ayaa soo wareejiyay wuxuuna ku soo wareejiyay magaalooyinka dalxiis badan ayuu ku soo wareejiyay. Marka oo Nuur aabihiisa ku soo wareejiyay magaalada maalinta ku xigto subaxdeeda iskuulka ayuu imaaday. Markuu iskuulka imaaday Nuur macalinkiisa iyo maamulaha ayaa weydiiyeen waxay dhaheen shalay intee ku maqneed. Wuxuu yiri shalay waxa been ayuu sheegay waa xanuunsanaa ayuu yiri maamulaha saas ayuu u sheegay. Markii oo la soo galay fasalada ayaa macalinka istaagtay macalinka wuxuu ku dhahay Nuur hadaati been ayaa sheegaysid indhahaada ay ka muuqdaan. Hadda waxa ku fiican inaad runta iska sheegid. Nuur cabsi ayaa gashay runta ayuu sheegay. Wuxuu yiri aniga aabahayga ayaa ka codsaday inuu uu soo wareejiyo magaalooyinka Muqdisho. Macalinka isla markii maxanaaqin Nuur wuxuu weydiiyay waxa aad ku soo aragtay magaalada Muqdisho noo sheeg. Nuur asiga oo ka muuqato farxad iyo doola cadeen ayuu macalinka iyo ardayda ugu jawaabay waxa aan magaalada Muqdisho ku soo arkay dhismayaasha caanka ah iyo dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa sare iyo jaamacadaha gaarka loo leeyahay iyo jaamacadda ummadda. Waxa kale oo aan ku soo arkay dabaqyo dhaadheer oo ku cusub iyo suuqyo waaweyn xeebaha magaalada iyo dhinaca bari ka saaran. Sidoo kale waxa aan ku soo arkay gaadiid fara badan oo noocyo kala duwan leh. Waxa kale aan tagay beerta nabadda oo aan ku soo arkay dhir iyo midabyo qurux badan leh iyo ubaxyo midabo kala duwan leh. Waxa magaalada madaxda Soomaaliya uu magaalada weyn oo laga bilaabo in la dago waqti fog. Marka qisadan waxaa ka baranay in magaalada Muqdisho ay tahay magaalo weyn oo caasimad ballaaran leh oo weli jirto quruxdeeda iyo bilicdeeda. Fiidiyowgan meeshaas ayuu ku egyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.